fadlan subscribe saar haddii aad ku cusub tahay channelkan gambaralkana furo si aad u noqoto qof warriya daawada waxyaabahan soo gelina barteena. waxaa jiray islaan cajuus ah iyo ninkeeda kuwa oo deganayeen meel kayn ah. guriga ugu yaalay wax caruur ahna ma aysan dhalin oo waa ay walwalsanayeen maadaama ay ahaayeen caruur la-aan. maalintii dambe waxay sameynaysay rooti iyadoo qasaysa burkii baa ninkeedu u yimid. maxaad samaynaysaa ayuu ku yiri. rooti ayaa inoo sameynaya ayay tiri. iska sug. waxay walaaqday oo ay walaaqday burkii sidii ay u qastay. kadib waxa ay ka dhigtay sawir dad ayay u samaysay burkii rootiga ahaa. markaas bay foornada gelisay waa ay sugtay. waar markii caraftiisa ay soo gaartay waxay gashatay gloves kadibka wax looga soo bixiyo. kadib foornadii ayay kasoo bixisay rootigii ka samaysnaa sidii dadka oo kale. waxay u ekeysiisay wiil yar rootigii maadaama aysan caruur lahayn. waxay u samaysay indho nanac ay indhaha uga dhigtay iyo sanka. kadib waxay u marmarisay kareen iyadoo dhar uga dhigdhigaysa. kareenkii ay gacmaha iyo lugaha iyo dhaxda iyo meel kasta u marmarisay. kadib waxay ku dhejisay waxyaabo kaleentood si ay uga dhigto dhar sharaxan oo qurux badan. markaas bay isweydiisay waxbaa ka dhiman maxay yihiin. halla waxbaa ka dhiman. sidaa markay u fiirisay waxay ogaatay inuu ka dhiman yahay afkii. waxay tiri haa waa run afka ayaa ka dhiman waa inaan u sameeyaa. kadib kajab ayay afka u marisay oo waxay u samaysay af qurux badan. kadib waxay tiri allah maxaan sameeyey maanta. wiil yaroo qurux badan baan rooti ka sameeyey. waa u hadlay rootigii waa ay yaabtay. ma hadli kartaa ayay weydiisay. wiilkii yaraa rootigii ka samaysnaa waa uu soo booday. haa hadal iska daayay waan ordi karaa xiteer miyay aragtaa sidaan u ordi karo. waaw yay qaban karo ayuu yiri. waxuu kasoo booday derbigii. waxa uu imaaday dhulka isagoo kusoo korbooday kursi. kadib waa uu cararay waxa uu ka dhex baxay albaabkii. naagtii way aragtay rootigii oo cararayo. kadib waa ay daba carartay oo waa ay bursatay. waxay rabtay inay soo qabato waana ay soo qaban weysan tahay ilaa uu ka dhex baxayo guriga beertiisa. waa ay bursanaysay. waxa uu dhahayay anigoo ah wiil rooti ah yaa isoo qaban kara. habartii waa ay bursatay. odageedii baa meel sare guriga ka dhex arkay. markaasuu ku yiri xageed aaday war xagee u ordaysaa ii sheeg. markaas ayay ku tiri waa ay maqashay war rooti yaraan sameeyey oo wiil u ekeysiiyey baa iga cararay waan bursanayayey. odaygii waa uu la yaabay. rooti orday xaguu ka imaaday. habartii waa ay carartay waxay bursatay wiilkii yaraa rootiga ahaa. waa ay bursatay daba cararaysay ilaa hadda waa ay qaban la-dahay. markii dambe waxa uu ka galay meel shabaq ah. ay kasoo dabagashay waa soo daba carartay. islamarkii waxaa arkay sac meesha badal ku cunayay. markaas ayuu ku yiri halla rooti baan arkay waa inaan soo qabsadaa waan cunaa maanta waan ku qadaynaya rootigan aniga bolaftirkeyga waan u baahanahay waxaan cuno. waa usoo daba cararay. markaas wiilkii yaraa waxau leeyahay anigoo wiil rooti ah yaa i qaban karo qof i qaban kartaa ma jirto. wiil rooti baan nahay geesi baan nahay anigaa ugu or badan wax i qaban karaa ma jiro. sidaa ayay isku daba cararayeen. markiiba waxay soo agmareen doofaar isagana baahi hayso. markaas ayuu yiri allah waree waa rootiga iga dabageeya ayuu yiri waa inaan cuna an laftirkeyga waan baahanahay. oo soo daba cararay. isla markiiba waa uu kasoo daba orday. saddexdoodii waxay wada bursanayaan rootigii yaraa. isagiina waxa uu dhahayaa anigoo ah rooti wiil ah yaa i qaban karo wiil rooti baan ahay yaa i qaban. xayawaanadii kalena waxay leeyihiin allah waa inaan qabanaa baahi baa i hayso anigaa qabanayo. haddana waxay soo agmareen digaagad yaroo meel badar ka raadsanayso iyadoo baahan. waxay tiri kanaaba igu filanaa ku qadaynaa maanta waa inaan bursadaa kukukuk. waa soo carartay idini. waxay tiri waa inaan qabsadaa ani laftirkeyga waan baahanahay. waa ay kasoo daba carartay. afartooda waxay wada bursanayaan rootigii yaraa. isagiina waxuu leeyahay anigoo ah wiil rooti ah yaa i qaban karo. habartii waa yaaban tahay. sacii sidoo kale doofaarkii isagiina badar u raba uu daba cararaa. wiilkii yaraa siduu u cararay oo uu dhahay anigoo ah wiil rooti ah waa uu ka dheereeyey. saddexdoodii afartoodaba waa uu ka dheereey zaa'id ayuu uga soo fogaaday. oo waxa ay ka dambeeyeen in badan. waa uu kasoo cararay kasoo fogaaday wadada ayuu sidaa ula socday. waa uu soo fogaaday ayagiina meel dheer ayay u jiraan.
saaxiibkaas sidoo u orday wiilka rootiga ahaa zaaid buu usoo orday wiil rooti baan ahay cid qaban kartaa ma jirto wiil rooti baan ahay cid qaban kartaa ma jirto waa uu soo orday waa uu istaagay waxa uu arkay biyo webi meesha wadada ah oo isku nacay webigan isku galinayo siirada isku gasho bis way ku dhamaatay adiga dhan waa ibra noqonaysaa waa kala go'aysaa alla maxaan sameeyaa isagoo yaaban kuwan kale kuma soo dhow ay ka fog yihiin balse marba marka dambaysa u soo dhowaanayaan geed gadaashiisa waxaa kasoo baxday dawaco markaas ayuu ku tiri ma ku caawiyaa markaas ayuu ku yiri sideen kuugu aaminaa adigoo dawaca ah markaas ayuu ku yiri ma ku aamini karo markaas ayuu ku tiri dawacadii mayaa ka walwalin taas waa aamini kartaa waa caadi webiga ayaa ku gudbisiinaya sidaa ayaa ku soconaysaa dibkayga soo raaxay tirada haddii u kalsoonin dibkayga kugu dhiibaya okay ayuu ku yiri dibkii ayuu ka qabsaday webigii ayay la gashay kuwiina ay soo dhawaadeen adiga waa ay ka istaageen webiga dabaal waxba kama garanayaan meeshooda ay ka fiirsanayeen waana ay ka niyad jaban inay soo qabsadaan rootiga indhaha ayagoo ka fiirinaya ayay ka hareen dabaal ma garanayaan wax ay ogyihiin malahan meeshooda ayay ku hakadeen rootigii yaraane sidaa ayuu webigii ku dhex marayaa kadib waxa uu dareemay dibka inuu qoyaan soo gaarayo markaas ayuu dawacdi la hadlay markaas ay ku tiri ii sameey dhabarkayga soo fuul meesha haddii ay qoyayso dhabarkeeda ayuu soo fuulay sidaa ayay ku waday dhiib ayay ku noqotay oo meeshii webiga ayaa moolashiisa lasii gaaray dawacdii marba marka ka dambeysa waa ay sii quusaysaa oo dhabarkeeda xitaa waa uu qarsamayay waxay ku tiri madaxayga soo fuul haddana madaxii ayay kas u gelisay biyaha oo ay qarisay kadib waxay tiri sankayga soo fuul madaxa lagu hayaysan kaa qoyine sankayga soo fuul waa iska caadiye haddana sankii ayuu ka fuulay sankii markuu ka fuulay webiga markii kasoo baxday bay kor u tuurtay bay afka ukala taagatay afka markay ukala taagatay waxa ay rabtaa inuu kusoo dhaco afkeeda uu dalakh u dhaho rootigan yar isla markiiba waxaa ka daftay duke ayaa ka dafay oo la cararay rootigii dawacadiina sidii ayuu afka ugu kala taagan yahay waa ay niyad jabtay maadaama laga dafay oo lagala haaday rootigiina waa uu yaaban yahay duka ayaa ku dafay qorshe ayuu keenay markaas ayuu la hadlay waxa uu ku yiri dawacadii waxaa kasoo dafay dukay intuu dhahayay buu kasoo dhacay rootigii waa dhulka ayuu kusoo dhacay sidaa ayuu isagoo faraxsan uga soo cararay meeshii waxa uuna dhahayay wiil rooti ah yaa qaban karo wiil rooti ah yaa qaban karo sidoo u soo socday magaalooyin fara badan ninkan orod ah u daaran bis inuu ordo leemayna tala kale ma lahan wax uu cuno uma baahna waa uu ordayay siduu u ordayay magaaluu soo dhexgalay dadku iska soo dhex carcararay waa cid arkayso la hadlaysaana ma jirto sidaa ayuu uga badbaaday sheekadiisa maanta halkaas ayay ku eg tahay rooti wiil yaroo rooti ah waa wiil yaroo aada u qurux badan oo mucjiso ah kana soo badbaaday haliso fara badan fadlan subscribe saar haddii aad ku cusubtahay channelkan gambaralkana furo si aad u noqoto qof warriya daawada waxyaabahan soo gelina barteena beri baa waxaa jiray 4 dibi oo saaxiibo ah 4 dibi waxay isla wada joogeen mar walba meel oo mar walba ma aysan kala fogaan jirin oo waa israaci jireen xayawaanadoo dhanna waa ay ka baqi jireen oo ma aysan damci jirin 4 dibi ayagoo isla socda oo waxa ay ahaayeen kuwo iska celiya xayawaan kasta xayawaankii isku dayaa in uu soo weeraro waxa uu ka yaabi jiray sida ay u midaysan yihiin kadibna waa uu ka carari jiray beri baa waxa uu yimid oo arkay shabeel oo ka fiirsanayay meel dheer shabeelkii markii uu arkay waxa uu yiri 4 dibi oo sidaan u burburan ima dhaafayaan waa in aan cunaa oo aan u dhameeyaa maadaama aan baahanahay baahi bay hayso shabeelkii waa uu ku cararay oo waxa uu aaday dhankii iyo 4 dibi maadaama ay isla jiraan waa isku kalsoonaayeen oo ay 4 yihiin kana uu hal yahay waa ay garaaceen darbo iyo harantii isugu dareen iyo hirti shabeelkii waa uu yaabay sida loo galay kadib waa iskaga tagay meesha maadaama ay ka xoog badan yihiin ee hilfaha u qaadeen ma uusan isku soo damceen ayaamo ka bacdi 4 dibi waa isdagaaleen laba ay isku qabsadeen oo waxay yiraahdeen adiga islama joogayno aan kulama joogay iga qalay ma ku rabi ana dhiba igu tahay iyo qayl iyo dagaal ay dhaxgaleen 4 dibi ayagoo kala careysan ayay kala tageen oo 4 dhinac ayay kala aadeen
shabeelkii oo in badan gaadayay jaaniskiisa ayuu helay. Kadib waxa uu nafsadiisa ku yiri maanta ayaan idin helay. in badan oo isla joogteen waa iga badbaadeen, balse maanta waa idin dhamaatay. Kadib waxa uu soo aaday kii koowaad, waa uu cunay oo waxa uu dilay isagoo macnaha kaligiis meel joogo. hal ayuu rabaa inuu dilo kii labaad, kii saddexaad waa uu dhameeyey, kii afaraad ayaa u dhiman, isagana kaligiis ayaa soo haray. wuu cararay meel uu ka baxo ayuu waayay, darbi weyn imaaday. Kabacdi wax uu sameeyay ayuu waayay, waa uu isdhiibay isagoo yaaban. fadlan subscribe saar haddii aad ku cusub tahay channelkan, gambaralkana furo si aad u noqoto qof ugu horreeya daawada waxyaabahan soo gelino barteena.